hashbaabi oo si weyn ay saameyntiisu u qabsatay baraha bulshada sida Instagram kadib markii uu hanti badan ka dhacay bangiyo caalami ah iyo hay'ado kala duwan. ninkan oo u dhashay dalka Nigeria ayaa magaciisa dhabta ah lagu magacaabo Ramon Abbas, waxaana taageerayaashiisa Instagram-ka ku xidhan tiradooda ay gaaraysaa 2.5 milyan oo ay u yaqaanaan hashbaabi. FBI-da ayaa u aqoonsatay ninkan mid ka mid ah budhcadda ugu caansan adduunka, wuxuuna haatan wajahayaa xukun xabsi ah ilaa 20 sano ah, kaasoo uu hadda ku xidhan yahay mid ka mid ah xabsiyada Mareykanka kadib markii uu qirtay dambiyo la xiriira lacag dhaqid iyo weliba lunsasho hanti aad u fara badan oo malaayiin dollar ah. dokumentiyo maxkamadeed oo la helay ayaa daaha ka qaaday in ninkan uu ka dambeeyay falal badan oo ka dhacay internetka, kuwaasoo malaayiin lacag ah looga xaday dad aad u tiro badan welina dhibanayaal u ah lacagihii uu ka galaaftay. bilowgii nolosha ninkan ayaa ka soo bilaabmatay meel hoose laguna anaanaysi jiray Yahoo Boy. markii uu ku noolaa Nigeria ayaa waxa uu gaadhay heer loogu yeedho bilyaneerka Gucci, taasoo loo aanaynayo shirkadaas oo ka mid ah shirkadaha ugu caansan ay maalqabeennadu ka adeegtaan. sidoo kalena wuxuu ninkani galay nolol raaxo leh isaga oo degay magaalada Dubai ka hor intii aan la xidhin 2 sano ka hor. 37 jirkan ayaa shaqadiisa ka bilaabay Owonishoki oo ah deegaan xeebeed sabool ah oo ku yaala waqooyi bari ee Lagos oo ah caasimadda ganacsiga ee dalkaasi Nigeria. mid ka mid ah dadka deegaankaas oo lagu magacaabo Seya ayaa sheegay inuu xasuusto Abbas oo ku caanbaxay hashbaabi markii uu yaraa oo hooyadii kala shaqayn jiray suuqa Olocho, aabihiina wuxuu ahaa tagsiile. markii uu soo weynaaday Seya wuxuu yidhi isaga oo ka warramaya Abbas wuxuu jeclaa inuu aad u isticmaalo lacagtiisa, wuxuu ahaa deeqsi, wuxuuna u soo iibin jiray khamriga qof kasta oo ag jooga. laakiin qof kasta wuu ogaa ilaha ay lacagahani ka soo geli jireen, taasoo ahayd dhac iyo weliba dembiyada uu ku waday internetka, ayuu yidhi Seya. barta internetka ee Yahoo Boys waxay ahayd goob ay dadku hab online ah isku shukaansadaan, waxaanu magacan ka qaatay emailkii ugu horreeyay, waxayna isaga iyo raggii asxaabtiisu ay la yimaadeen fikrad lagu xadayo aqoonsiga dadka uu ka samaysto bartaas, iyaga oo jacayl been ah la jilaya qofka online-ka ay iska bartaan kadibna ay lacag uga qaadaan. sidaa ayuu ku sharaxay Dr. Adichie Anyongo oo ah khabiir ku takhasusay dambiyada internetka kana tirsan jaamacadda Lagos State University. intaas kadibna Abbas waxa uu ballaariyay aragtidiisii dambiyeed iyo weliba sida loo dhaco, isagoo si qoto dheer u bartay sida loo dhaco hantida, wuxuuna u wareegay dalka Malaysia isaga iyo rag saaxiibadiisa caasimadda dalkaas ee Kuala Lumpur ayuu 2014 yimid, kadibna xaggaas iyo Dubai ayuu uga boqolay 2017. hantidii ay Kuuriyada Waqooyi isaguba ay wada dhaceen waxay soo bilaabatay kadib markii uu boostiyo badan Instagram-ka soo dhigay, waxay gaarsiisay inuu heer kale u gudbo yeeshana ama uu ku xidhmo budhcadda ugu waaweyn dunida. bishii Febraayo sanadii 2019 wuxuu isku dayay inuu dhaqo 13 milyan oo euro oo u dhiganta 15 milyan oo dollar oo ay koox budhcad ah oo u dhashay North Korea ka xadeen bangiga Malta ee Valletta. Abigail Mamo oo ah madaxa fulinta ee rugta ganacsiga ee Malta oo ka warramayay arrintan ayaa sheegay in dhacdadan jasiiradan oo dhan laga dareemay. waxayna tiri waxaan ka war helnay oo telefoon nooga yimaadeen xubnaha bangigeena oo noo sheegay in lacago dhac ah la soo dhexmariyay bangiga Valletta. meesha ay lacagtani ka timid markaas kama aysan helin wax xog ah. lacagahaasna si maalinle ah ayaa 10,000 oo euro la mariyay. bangigan ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen oo ay soo ceshadeen 10 milyan oo euro. waxaase jiray Abbas qoraal uu u diray saaxiibkiisii waqtigaas ay heshay FBI-da, iyadoo sidoo kalena la helay kiis kale oo xigay oo la qorsheeyay, kaas oo ku soo aadanaa dhowr toddobaad gudahood. waxaa jirtay fariin loo soo diray Abbas oo uu qoray sida tan: waxaan ku ogeysiin doonaa marka ay diyaar noqoto hawshu. dhanka kale fadeexadda ka dhacday horyaalka ciyaaraha Ingiriiska ee Premiership-ka ee bishii Maarso 2019 waxa uu Abbas u xil saarnaa inuu akoon bangi ka furto Mexico, waxayna hawshiisu ahayd inuu 100 milyan oo pound ka dhaco koox ka tirsan kubadda cagta Premier League ah iyo 200 milyan oo pound oo shirkad Ingiriis ah, inkastoo midkoodna lagu shaacin warqadaha maxkamadda. qorshahan waxaa lagu fuliyay iyada oo loo marayo is-afgarad dad ganacsato ah ku dhex maray emailka ganacsiga ee BEC. si fudud ayayna shirkadda BEC ku shaqaysaa, waxayna Abbas iyo kooxdiisu farageliyeen lacagahaas iyagoo u sii maraya emailo been abuur ah oo u muuqda inay ka yimaadeen ciwaanada saxda ah.
kuwaasoo marka aad u fiirsatid ku kala duwanaan kara hal xaraf ama hal nambar oo keliya. iimayladaas tuugada ah iyo kan saxda ah oo aan si fiican loo kala saari karin ayuu xisaabiyuhu si fudud u diray, waxaana lagu khiyaameeyey sidaas iyaga oo u malaynayay inay codsiyadani yihiin kuwa sharci ah oo ka yimid ragga iska lahaa. balse khiyaamadii iyo xatooyadii lagu fuliyey horyaalka ciyaaraha Premiershipka ayaa guulaysan weyday kadib markii bangiyada UK ay diideen inay wax ku bixiyaan akoonkii Cabbaas ee ka furnaa Mexico, waxayna u qoreen fariin ah UK lacag uguma diri karto Mexico. waxyaalaha kale ee la yaabka leh ee John Sheehan oo ah hogaamiyaha hay'adda dambiyada qaranka ee UK sheegay inay adag tahay in la raad raaco shabakadaha dambiilayaashani wax ku dhacaan, waxaana xaqiiqo ah qareen fadhigiisu yahay Dubai oo lagu magacaabo Barney Almasar inuu tilmaamay in shabakadani oo Cabbaas wakiil ka yahay lagu dhacay ilaa 25 qof oo ay ku jiraan 8 muwaadiniin UK ah oo ku sugnaa gudaha Imaaraadka Carabta, kuwaasoo dhammaantood dhibanayaal u ahaa shabakadan Hashbabi. mid ka mid ah dhibanayaashan oo u dhashay Ingiriiska oo codsaday inaan magaciisa la sheegin ayaa sheegay inuu khasaaray 500,000 oo pound lacag gaaraysa laguna qasbay inuu ka tago Imaaraadka, isaga lafahaantiisuna waxa uu wajahay dacwad dambiyeed gudaha Dubai kadib markii uu iska bixin waayay deyma uu qaatay. markaas hadda ma dacweyn karo maxaa yeelay waxaa dhibanahan ku adag siduu uga laaban lahaa Imaaraadka oo ah halka qoyskiisu ay weli joogaan, waxaase ninkaasi la sheegay isla markiiba in la qabtay isaga oo tahriibaya. waxayna tani tusaale u tahay oo ay ka hortagaysaa dhibanayaal badan oo Hashbabi uu dhacay inay iyaguna dacwada gudbistaan. Cabbaas khiyaamadii weyneed ee u dambeysay ka hor intii aan lagu xidhin Dubai bishii Juun ee sanadii 2020 waxay ahayd xatooyo toos ah. fikraddaas oo weliba la mid ahayd kuwii uu yaraantiisa wax ku dhici jiray markii uu lahaa barta Yahoo Boy, wuxuuna uu qaatay aqoonsi uu leeyahay nin ka shaqeeya bangiga New York si uu u dabto ganacsade Qatari ah oo doonayay $15 milyan oo dayn ah si uu dugsi cusub uga dhiso Qatar intii u dhaxaysay bilihii Diseembar 2019 iyo Febraayo 2020. Cabbaas iyo koox la sheegay inay dhexdhexaadan yihiin oo ku sugan Kenya, Nigeria iyo Mareykanka waxay u diyaariyeen ninkaas Qatariga ahaa lacag ka badan $1 milyan. qaar ka mid ah waxaa lagu dhaqay iyada oo la iibsaday saacado qiimahoodu dhan yahay $230,000. laakiin wax yar kadib khilaafkii iyo dildalaacii u dhaxeeyay tuugadan ayaa banaanka timid kadib markii mid ka mid ah xubnahaasi uu ku hanjabay inuu qarxin doono sirtooda maadaama uusan ku faraxsanayn lacagta uu helay. Cabbaas waxaa ka go'need inuu xidho ninkaas, waxaana uu fariin qoraal ah ugu diray oo la xiriiray sarkaal ka tirsan booliska Nigeria oo lagu magacaabo Abba Kyari isagoo oo ku leh taliye waxaan rabaa inaad lacag kugu siiyo si aad wiilkan xabsiga u dhigtid oo muddo dheerna ugu jiro. taliye Kyari ayaa lagu eedeeyay inuu sidaasi sameeyay uuna xadhig been abuur ah kula kacay oo muddo bil ah ku xidhay isagoo muddadaas ku xidhnaa xabsi ku yaala dalka Nigeria. waxyaabihii uu sameeyay Hashbabi waa kuwa adduunka oo dhan ka yaabeen sida laga soo xigtay FBI-da Mareykanka. dhacdadii BEC ee 2020 waxay keentay khasaare dhan $1.8 bilyan Mareykanka ah. dokumentiyada maxkamadda ayaa sheegaya in dambiyada Cabbaas geystay ay ku kaceen ku dhawaad $24 milyan, laakiin qaar ayaa aaminsan in lacagtu intaas ay aad uga badan karto. bartiisa Instagram-ka wuxuu ka bedelay ciwaankiisii magacii bilyaneerka Gucci Master, wuxuuna u bedelay Real Estate Development isagoo ku biiray shirkadaha dhul iibsiga 8 bilood ka hor intii aan la xirin kadibna loo gudbin Mareykanka si maxkamad loo saaro. inkastoo uu qirtay dambiyadiisa bishii Abriil ee sanadii 2020, haddana Hashbabi ciwaanada uu ku leeyahay baraha bulshada weli waa kuwa jira oo soo jiidanaya taageerayaal badan. waxaan la xiriirnay Instagram-ka si aan u weydiino sababta uu akoonkiisu weli u furan yahay. Dr. Ayongo ayaa sheegay in Hashbabi saameyntiisu ay sii waari doonto maadaama weli loo arkay inuu yahay tusaale lagu daydo. waxaan joognaa waddan ay dhalinyaro badan ku dhibaataysan yihiin duruufo shaqo la'aanteed. waxay arkaan qof kale oo dhalinyaro ah oo iyaga oo kale ah oo nolol wanaagsan ku nool. waan arkay buu yiri waalidiin oo u kaxaystay caruurtoodii si ay u bartaan sida loo noqdo Yahoo Boys oo ah akoona dadka lagu dhaco loona furto.